Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteyda, waa mar kale walaashiin Safiya Xubiyo idin leh. Soo dhawaada, welcome. Waa muuqaalkii oo dhammaystiran idin wado. Ugu horreyn channelka haddaad ku cusub tahay subscribe noo saar, haddaa hore noola joogtana mar kale soo dhawaada kuleena waa mahadsantahay. Intaas kadib qisadii waxay noo mareysay gabadhi Maryan ahayd qisadeedii weeyaan, oo maxaan ku radaa tan hadda lasoo dhaafay qaybta kan ku xigtay. Haddaad fiirsatay baad ogaan kartaa qaybtan aan soo dhigay qaybteeda kale weeyaan tan. Markana la socda asxaabay, waxay leedahay Maryan marka waxay tiri guurkeedii wiilka ay balanta ay ka qaaday markuu dib u dhigay waxba kama qabay bay tiri. Marka wiilkii walaalkiisa markuu u tagin oo waxaan uu sheegay, wuxuu yiri markaa waa uu fikray labadan qof sidaan oo dhan saaxiibtinimo weyn ay lacag iskugu diraan intaan oo dhan ay leedahay, haddana muddo 3 sano isnaqaanaa macquul maahan oo nin iyo naag dhexdooda shaydaana ku jira hore loo dhahay oo yiri maqlaasne. Marka macquul maahan ay wiilkan iyo gabadhan wax un weyba jiraane hadda inay wax ka qarin weyna laga yaabaa. Gabadhu waa gabar, idan gabar waxaa la yiri kumbay koodisaa kubay kala baxdaa. Marka gabadhu inay gabar ay tahay aniga asan iska wada xitaa laga yaabaa labadeen qof un ay been u sheegaysay. Marka iska ogow qofka ay jeceshahay haddii walaalkaaga uu jecel yahay oo indhihiisa qofka wax jecel waa laga dareemaa kuley. Si fiican u fiirsaa darteed buu guurka dib ugu dhigay walaalkii bay tiri. Anigana waxaas uma maleynayn inuu soos ugu dhigay inuu warkayga aamini baan u maleynayay. Marka waxay socotay buu waqtiga socdo, wiilkii uu joogay Jarmalka markuu wuxuu yiri walaalkii waxaan waxaas isii weydiiyay asna inuu soo wacay markaasna uu xal wareysanayay kana uu xal wareysanayay. Marka anigana labadooda dhexdooda kulmay mid balan baan ka qaaday oo maxaan ku radaa waa balan inaan ku guursado qofan adi aan ma guursan doono baan yiri. Midna jacaylkiisa maalinta ka dambeysay xitaa anigoo ogaaday inuu walaalkiisa yahay, jacaylkiisa maalinta ka sii dambeysay waa mid igu siyaaday. Ugu dambeyn waan is celin waayay bay tiri gabadhii oo maxaan ku radaa kana waan jeclahay oo zaaid baan u sii jeclaaday, kana balan baan ka qaaday oo haddana been u sii sheegay oo walaalkaaga saaxiibo caadi leenahay baan yiri bay tiri. Marka waxaan intaan kadib waxay is tiri marka waxba ma qarin karta labadooda mid un waad weynaysaa midka weynaysad wey, laakiin waxa kula gudboonaa fikirkaaga samee bay is tiri. Marka saaxiibadeeda gabdhihii bay la tashatay, gabdhihii waxay yiraahdeen marka midkaad jeceshahay maahan midka ku jecel guurso, wax ku jecel lama hele. Waxaas yiraahdeen taas dhan uma cadda. Marka waxay leedahay aniga qofkaan si xad dhaafan u jeclaaday, marka kana balan ka qaad wax aan sameynayo ma lahan, meelaan iska bixinayo mala. Labada qofna waxaan laba qof aan isku wanaagsanahay, dad aan is xumeyn karno maaha. Labada wiil bay ugu soo dadaaleen qaasatan kan aniga saaxiibkayga aniga aan jeclahay. Kaalin weyn buu nolosheyda ka qaatay oo intaan Muqdisho imaaday anigoo abaar yar joogo walaaleyga ani markaas aan keenay baan isbarnay ilaa iyo halahan qofka ila soo asaagayga xitaa kore ii dhaafsiiyay oo aan iga dhigi qof waxba aysan ka maqnayn. Markaan wadada socdo qofka iga dhigi buu ahaa, awaalkiisa ma jibin karo, kani waa walaalkiisa haddan dhaawaco labadooda waqtiga ay qaadayaan. Marka waan fikray bay tiri. Waxay tiri marka maalmaha ka mid ah baa eedaday soo wacday bay tiri oo eedo miyaha waxaa ku soo doontay wiil oo maxaan ku radaa gabar raadinay anna adiga ilmahayga way yaryar yihiin, wixii weyn waa qof oo maxaan ku radaa reer leh weeyaan, adaa hadda jooga. Marka waxaan yiri waxana gabar awoona tahay laba ciyaal koristooda hayso. Marka wiilkan waa wiil iska fiican oo maasha Allah ah. Wiilka marka waxaan yiri gabadheeda eedadaan u hayaan ku siinayaa. Marka gabadheedii ogow gabadhi way yaabtay, waxay tiri eedo aniga see marka ma sameyn kari bay tiri. Marka ayadoon u sheegin in maxaan ku radaa midkan uu soo doonan rabay familka ibar uu dhahay walaalkiisa markaas la baray sheekadii saas ku hartaybo. Marka waxay tiri waan u sheegi karaa, laakiin waxay tiri
eedo guurka culeys buu igu yahay walaalahayga horumarkooda ka fikiraya marka walaalahayga reer weyn aan gaarsiiyo markaas inaan guursado waa laga yaabaa laakiin eedo guurka iga daa bay tiri. Marka eedada waxay tiri guurka wax kaaga fiican ma lahane guurso inay yahay bay tiri. Marka aniga waa fikiray bay tiri, marka saa u fikirayay kani waad jeceshahay kani balanaad ka qaaday labadood. Ugu dambeyn saan u fikirayay fikrad waxay ii soo baxday labadaba iska daabo, kana hadaad guursato kana qalbiga ka jawaay, kana hadaad guursato kana qalbiga ka jawaay, labadiina laba is xumeyn kartaan maaha. Hata eedadaada meel fiican kaaga soo baxdee nina kuu hayay ku tiri iska guurso bay tiri. Marka waa lagu qasbay xitaa iska dheh been sheeg bay tiri. Marka maalin maalmaha kamid ah waxay iyadoo murug aad u weyn isa saaraysa ay wacday labadaba midka oo balanta qaaday bay wacday waxay tiri aniga waa lay guursan rabaa iska ogow. Waxaan ku iraadaa eedaday been inuu ku qasabtay oo waxaas u sheegtay. Wiilka wuxuu yiri dhib ma lahan waa caadi haddii eedada ku qasabtay qasabku guurso ay ku tiri waa caadi. Wiilkii marka shalay ka noqotay walaalkay gabadhan ma baysan rabin miya hadda nin ma guursanayo aniguna waan jeclaa waxaas buu isweydiiyay bay tiri. Aniga midka kale saaxiibada aan ahayn waa wacay, markaan wacay waan awoodi waayay inaan dhaho waa lay guursan rabaa. Markii aan wacay waa u bilow arag wadnaha saas ii garaacmo waaba iska dayay bay tiri oo ayuu ku salaamay waxaas la iska dhahay tiri. Marka waa u sheegi kari waayay waa soo baxay tuuladii baan imaaday. Wiilkii wiil joogaba muusan ahayn eedadii ay keentay laakiin familkiisu wuxuu ahaa famil meelahaas joogo. Marka familkiisa lay bar waxaa la dhahay marka gabadha wiilka halkan ma joogo. Wiilku wuxuu yiri gabadha marka guurka loo dhigay kadib maxaan ku radaa ani tikidkeedii xitaa loo soo jaro xalay keeno aniga waxaan joogaa Jarmalka buu yiri ayada. Gabadhii way yaabtay waxay tiri wiilka ani igu dari rabteen Jarmalka ma joogaa oo ani markaas waxay tiri marka shalay ka noqotay oo kana waa u deeriyay kana walaalkiisa uu u sheegay umaleynayaan wiilkan halkan uu joogo. Marka waxay tiri Jarmalka waa meel weyn hal meel ku noolaadana qasab maahan ee guurka iska yeel bay tiri oo eedadaada wiilku ku doorto iska guurso walaalahaagana maadaama meeshaas aad tagtid ayagana say halkaas ku aadaan maxay ahayd fikirkooda gal kadib iska badaabo wiilkani wixiis dhan asalan iska jarbala oo ileen waan jecelahay waxaan ku sameynaa malaha iska jarbay istiri. Marka xiriirkiisa iyo wixiisi bay iska jartay. Markay jartay kadib wiilkii kale balanta ay ka qaad buu soo wacay wuxuu yiri walaalay wiilka adeerkayga dhalay baa gabar loo doonay maxaan ku raadaa anaga waxay taa guura noo soo dhow buu yiri. Marka maashaalla iyagana la isku dhaqo bay tiri maashaalla. Marka kaas way soo xiriirinayn laakiin sidii markii hore isku maanan ahayn. Midkaana blog wixiis dhan iska sarsaaray meel iga soo wacay muusan jirin.